بسم الله الرحمن الرحيم عشركان waxaan ku arki doonaa collectionskeena ama data structure collectionska qayb kamid ah waxaan arki doonaa collectionka loo yaqaan queue qaabka loo implement gareyn doono ayadoo la isticmaalayo linked list waxaan arki doonaa marka qaybtan linked queue haduu ilaahay idmo chapterkan waxaan ku arki doonaa ama aan focus ku saari doonaa haduu ilaahay idmo muxuu yahay queue maxaa loo isticmaalaa qaab kala duwan oo loo implement gareeyo queue sida caadiga ah taqaanid waa saf dhinaca laga soo gali doono dhinaca kalena laga bixi doono haddii aad fiirisid safkan qofka ugu horeeyo ayaa markasta u horbixi doono qofka ugu dambeeyana uu ugu dib mari doonaa haddii qof dheeraada u imaado wuxuu kasoo geli doonaa xagga dambe sida caadiga normalka aad taqaanid laba dhinac iska leeyahay marka queue-gana waxaan rabnaa marka inaan isticmaalno haduu ilaahay idmo markii la joogo collectionska ama data structure queue-ga qaabkaas u shaqeeyaa applicationada isticmaalo waxaa kamid ah tusaalahaan printerska oo kale markay rabaan documents inay print gareeyaan documentiyada badan oo u imaado wuxuu gelin doonaa queue wuxuu hormarin doonaa documentiga ugu soo horeeyay kadib wuxuu daabici doonaa second sidaas ayuu ku wadi doonaa waxaa kamid ah operating systemska task scheduling markuu sameynayo ama shaqooyin badan oo u imaadaan wuxuu sameyn doonaa shaqooyinka sida ay usoo kala horeeyeen inuu u kala qabto waxaa kaloo kamid ah switch iyo routers oo kale ayagana waxay isticmaalaan queue waxaa kamid ah call centerska waxaa kamid ah applicationska isticmaalo whatsapp chattingka markaad diraysid midba mid ka horeeyay ayuu kasii hormari doonaa qaabkaas u shaqeeyaa queue-ga markii la joogo data structure ama programmingka markii la imaado dhanka data structure waxaa loo yaqaanaa queue-ga waa collection elementskiisu ay dhinac kasoo geli doonaan dhinac kalena ay ka bixi doonaan laba dhinac iska leeyahay dhinacna way kasoo geli doonaan dhinacna way ka bixi doonaan qaabka u shaqeynaya marka waxaa loo yaqaanaa first in first out ama FIFO ama VIFO wixii aad dhahdid kii ugu horeeyay oo soo galay ayaa ugu horbixi doona kii ugu dambeeyayna wuu ugu dib mari doonaa insertionska ama kudaristo dhan waxaa looga soo dari doonaa xagga dambe rearka ama tailka ka bixista wuxuu ka dhici doonaa removalka dhanka loo yaqaano frontiga ama headka xagga horaa laga bixi doonaa xagga dambena waa laga soo gelin doonaa waa simple elementska marka meeshan ku jiro ama sheeyaasha ku jiro waxay u bixi doonaan qaabkay ku imaadeen kii ugu horeeya u hormari doono kan ku xiga ku xigsan doono sidaasay ku socon doonaan ilaa midka ugu dambeeya laga gaarayo saf kastoo aad aragtid marka waa queue tusaale ahaan shop centerska oo kale haddaad tagtid supermarketska check outka meesha lacagta lagu bixinayo lineka lagu jiro waitingka waa queue waxaa kamid ah baabuurta stop lightka markuu samaa faraha u istaajiyo qaabkay u taagan yihiin gaariga ugu horeeya u horbixi doono markuu stop lightka uu green noqdo gaariga ugu dambeeyana ugu dib mari doonaa waxaan rabnaa marka inaan aragno queue-ga sida loo implement gareeyo markii la joogo Java queue-ga qaabkan uu samaysan yahay frameworkiisa ku daristoo dhan intay ka dhici doontaa rearka ama qaybta ugu dambeyso wixii ka saarisana waxaa laga saari doonaa qaybta ugu horeyso operationska uu iska leeyahay haddii aad fiirisid oo standardka ah terminologygooda haddaad fiirisid markaan wax ku darayna waxaa isticmaali doonaa in queue micneheedu waxaad ku dartaa element xagga dambe uga soo dar dq waxaad remove gareysaa element waxaan laga remove gareyn doonaa frontiga first waa noo soo aqrisaa shayga frontiga ku jiro ismt wuxuu noo jeegareyn doonaa meeshaan wax ma ku jiraan mise waa faaruq sizekan wuxuu noo sheegi doonaa number of elementska meeshaan ku jiro waxaan arki doonaa marka operationskaas inaan sameysano oo aan hadhoodii implement gareyno glass noo sameynayo shaqadaas queue-ga marka aan rabno annaga inaan implement gareyno ama annaga aan sameysano waxaan ku implement gareyn karnaa laba qaab marka hore waxaan isticmaali karnaa array ama waxaan isticmaali karnaa linked list haddaan linked list isticmaalno waxaan sameyn doonaa linked queue haddaan array isticmaalana array queue ayaan sameysan doonaa implementationkeena ugu horeeyo waxaan ka bilaabi doonaa queue-ga inaan isticmaalno linked list waxaan abuurin doonaa glass lagu magacaabo linked queue galaaskaas wuxuu noo qaban doonaa ama uu yeelan doonaa operationskii shaqada noo fulin lahaa hadday ahaan lahayd ku daris hadday ahaan lahayd ka remove gareyn hadday ahaan lahayd jeegareyn inaan ogaano inuu faaruq iyo in kale iyo waxyaabahaas oo dhan implementationka marka aan sameynayno linked queue maadaama linked uu yahay oo isku xirxiran yahay
waxaan u baahannahay labada dhinac in aan u sameysano laba reference. midna wuxuu noqon doonaa head oo ah frontiga midka noo hayn doona addresskiisa, kan kalena wuxuu noqon doonaa tail oo ah node-ka ugu dambeeya ama elementiga ugu dambeeya addresskiisa midna noo hayn doono. labadan waan u baahannahay hadhowdii markaan galaaska abuurin ayaan sameysan doonaa hadduu ilaahay idmo. markastoo aan wax ku darno counterka waxaan leenahay plus plus, markastoo aan wax ka jarnana waxaan leenahay minus minus. q sidaan sheegnay wuxuu iska leeyahay front, sidoo kale wuxuu iska leeyahay rear ama head iyo tail wixii aad dhahdid. meesha wax laga remove gareynayo waa frontiga. haddii aan wax remove gareyn maaga waxaa la saari doonaa a, haddaan wax kusoo dari doonana waxaa looga soo dari doonaa qeybtan dambe ayuu ka isticmaali doonaa. markaan rabno inaan sameyno galaaskan linked q waxaan u baahannahay galaas lagu magacaabo node, maadaama linked listigu markii aan wax ku dareyno elementiga uu abuuri doono node. nodekana wuxuu ka kooban yahay sidaan ogsoonahay element iyo next. sidaan kusoo aragnay galaaskii stag oo kale constructor aan u sameyn doonaa oo mid parameters leh iyo mid aan lahayn. sidoo kale waxaan sameyn doonaa get iyo set propertieski aan u sameyn doonaa labadaas variable horena waa usoo aragnay. sidoo kale waxaan sameysan doonaa galaas lagu magacaabo linked q. galaaskan wuxuu yeelan doonaa head iyo tail oo referencega ama addresska noo hayn doono shayga ugu horeeyo iyo shayga ugu dambeeyo. counterkan wuxuu noo tirin doonaa meeqa elementi ayaa meeshan ku jirto. constructorkan wuxuu noo sheegi doonaa headka iyo tailka marka ugu horeysaba object markii galaaskan laga abuuro waxaa laga dhigi doonaa null, counterkana zero laga soo bilaabi doonaa. haddii marka headkii tailku null uu yahay ama counterku zero uu yahay micnaheedu meeshaas waa empty oo waa marka ugu horeysa object laga abuuro. kadib waxaan sameyn doonaa in q inaan node abuurano, element aan kusoo darno, hadhowdii headkii iyo tailkii aan set gareyno, kadibna counterkii aan hal ku darno. haddii marka node markaa abuurano waxaan sameyn doonaa inaan iska jeegareyno inuu empty yahay. sababta aan u jeegareynayna waxay tahay waxaan rabnaa haddii shaygan aan ku dareyno uu yahay shaygii ugu horeeyey addresska shaygaas waxaan ku shubanaynaa head. shaygaas hadduu asaga ugu horeeyo oo meesha faaruqa aan kusoo darnay addresskaas head uu noo noqon doonaa. haddii kale oo wax hore ugu jiray waxaan sameynaynaa shaygan shayga ku xigay asaga inaan isku xirno oo linki ka dhexaysiino, nextgiisa ayaan set gareyn doonaa. haddii marka shayga ugu horeeyey uu yahay head uu noo noqon doonaa, haddii kalena asaga iyo kan ka horeeyey linki ayaa ka dhexeyn doona. markasta ama ha ugu horeeyo ama ha ugu dambeeyo addresska midka cusub oo la abuuray wuxuu noo noqon doonaa tail. counterkana maadaama aan wax kusoo kordhinay plus plus aan leenahay. is empty markaan jeegareynayno waxaan fiirinaynaa counterku malaa'igga zero. haddii kale waxaa fiirin kartaa headkii tailka mid kamid a hadduu null yahay waxaa sameyn kartaa inaad dhahdid empty waa isticmaali kartaa ayagana. sidoo kale dq markaan sameynayno ama aan remove gareynayno waxaan sameynaynaa inaan iska jeegareyno meesha horta wax mina ku jiraan iyo in kale. hadduu empty yahay shaqo lagama qaban doono. hadduusan empty ahayn intaana tirtirin headka waxa ku jira waxaan ku keedsan doonaa result variable. headka waxaan u wareejin doonaa next address oo micnaheedu tahay shaygan waa la tirtiray, shayga ku xigo ayaa noqon doona next address. tusaale haddaad soo qaadatid safka qofka ugu horeeya hadduu baxo qofka labaad ayaa wuxuu noqon doonaa qofka ugu horeeya. sidaas oo kale maadaama headkii la tirtiray next addresska ayaa wuxuu noqon doonaa head. counterkina halaan ka jari doonaa. jeegareyntan dambe waxay shaqeyn doontaa haddii shayga ugu dambeeyo oo meesha ku jiray hal shay hadduu ku jiray halkaas shay haddii aan tirtiro meesha faaruq ay noqon doontaa. tailka wuxuu ku dhignaan doonaa addresskii la tirtiray. si aan uga fujino tailkana waxaan ku shubi doonaa null. is emptydan waxay shaqeyn doontaa counterka markii hal laga jaro haddii zero uu gaaro micnaheedu meesha empty noqoto tailkana waxaan ku shubi doonaa null, headkana wuxuu noo noqon doonaa null, counterkana zero ayuu noqon doonaa. micnaheedu waxaa waaye meeshaas waxba kuma jiraan. sizeka waxaan ku ogaanaynaa counterka waxa ku jira inaan soo horitaan gareeno. first wuxuu noo soo aqrin doonaa shayga frontiga ku jiro. hadduusan empty ahayn waxaan soo aqrinaynaa headka elementiga ku jiro. hadhow markaan soo daabaceyno waxaan iska fiirinaynaa inuusan empty ahayn. headka waxaan ku shubanaynaa current addresskiisa. currentigu marka ilaa uu null ka noqonayo wuu socon doonaa. godkii la tagaba waxa ku jira lasoo daabaca, godka ku xigaa loo gudbi doonaa sidaas ilaa uu null ka noqonayo. waxaan rabnaa marka in implementationka noocaana aan sameyno annagoo isticmaaleyno IntelliJ editorkeena ayaan u tegi doonaa. waxaan imaanaynaa editorkeena IntelliJ. waxaan isku dayaynaa marka in koodka hadda aan sameyno sida qaabka uu shaqeynayana aan aragno.
aan soo rangareeyo waxaan sameysanaynaa marka laba galaas aan u baahannahay, galaas lagu magacaabo node iyo galaas lagu magacaabo linked queue. galaaskeena ugu horeeya waxaa lagu magacaabaa node, waxaan u bixinaynaa node. waxaan kale u baahannahay galaas kale oo lagu magacaabo linked queue, galaas kale oo lagu magacaabo linked queue. operationsko dhan meesha ay ka dhici doonaan oo meeshaas isagana waa sameysanay. galaaska nodeka aan ka bilowno. galaaska nodeka waxaan u baahannahay in uu noqdo generic. waxaan sameysanaynaa marka nodeka wuxuu ka kooban yahay dhan element iyo next. elementiga waa datadii, maadaama datada uu yahay aan private ka dhigo waxaan leenahay t element. sidoo kale waxaan u baahannahay private. nextiga address ayuu hayn doonaa, isla galaaska ayaan ka abuureynaa. waxaan leenahay marka next. waxaan u baahannahay constructorkaas parameter uu qaadan doonaa. waxaan leenahay node, waxaan siin doonaa parameter, wuxuu qaadan doonaa element. elementigii loo soo dhiibay wuxuu ku shubi doonaa element equal element. nextigana waxaan ku setgareyn doonaa markastahay oo la abuuro node cusub null. meeshaan haddaa fiirisid waxaa ka dhici doonaa ambiguity waxa la yiraahdo, oo compilerka wuxuu kala aqoonin doonaa kee variable-kii ah ama class field-gii iyo parameterkan. si loo ogaado kan inuu variable-ka class-ku leeyahay uu yahay, waxaan ka hormarinaynaa this dot element. haddaa fiirisid color-ku uu isbedelay. waxaan u sameynaynaa sidoo kale waxaan u sameysan doonaa properties ama get iyo set sidaa u taqaanid. get next uu diyaarsan yahay, tab kaliya ayaan dhihi doonaa. waxaan kaloo u baahannahay set next iyo set element. galaaskan intaanu ka kooban yahay marka waa get iyo set iyo hal constructor iyo labadii variable. galaaskan u baahannahay waa kan, waxaa lagu magacaabaa linked queue. linked queue haddii aad fiirisid isagana generic aan ka dhigan doonaa. waxaan u baahannahay inaan abuurano integer counter oo baahannahay, waxaan noola socon doonaa meeqa elementiya meeshaan ku jirto. waxaan kaloo u baahanahay inaan sameysto node head iyo tail u baahanahay. headku wuxuu noo hayn doonaa elementiga ku jiro frontiga addresskiisa, elementiga ugu dambeeya addresskiisa kana noo hayn doona. sababta aan node uga abuuro waxay noqon doontaa variable kasta ama object reference variable kasta oo address noo hayn doono waxaan ka abuureynaa galaaskan inta aan ku guda jirno implementationka. kan marka variable caadi maahan, waa variable lagu magacaabo object reference variable. wuxuu noo hayn doonaa addresska variable-ka, asaga data kale ma hayn doono. waxaan ka bilaabi doonaa constructorkeena. haddii aad fiirisid mid aan parameter lahayn ayaan sameysan doonaa. keliya wuxuu sameyn doonaa headka iyo tailkaba inuu ku shubo null, kadib counterkana uu kasoo bilaabo 0. shaqadiisu dhan waa intaas. operationka aan u gudagalna operationskeena waxay noqon doonaan midka ugu horeeya inq ayaan ka bilaabi doonaa. waxaan ku xijinaynaa size, waxaan ku xijin doonaa isEnt, waxaan ku xijin doonaa deq, waxaan kaloo ku xijin doonaa first. ugu dambeyn waxaan sameyn doonaa print q element iskina soo daabaan. waxaan ka bilaabeynaa marka inq markaan sameynayno waa inaan wax ku darno meeshaan. inq oo adigoo yiri camal add ama insert waa same. waxaan leenahay marka inq maadaama ay waxba soo celinayn void ayaan ka dhigi doonaa. inq parameter uu qaadan doonaa, shayga meesha lagu daraayo waa element. waxaan leenahay shaygan hadduu yahay shayga ugu horeeyay waxaan abuuran doonaa node, waxaan ka abuuran doonaa object. waxaan leeyahay temporary new node. waxaan u baasgareyn doonaa elementigaas meesha lagu xareyn doonaa. addresska nodeka la abuurayna waxaa ii hayn doona temporary. waxaan rabaa marka haddaa xasuusatid slideka haddii aan ku tuso, aan dib kuu tuso, markastoo aan wax ku dareyno waxaa iska jeegareynaya inuu yahay empty. hadduu shayga ugu horeeya uu yahay addresska wuxuu isku noqon doonaa head iyo tail.
asaa ugu horeeya asaa ugu dambeeya maadaama hal shay uu ku jiro. waxaan rabnaa marka inaan isempty samaysano maadaama isempty inta looga baahan yahay. isempty boolean ay soo celinaysaa. shaqada ay qaban doontana waxay tahay kaliya inuu jeegareeyo hadduu counterka la eg yahay 0 wuxuu soo celin doonaa true, haddii kalena empty ayuu soo celin doonaa. waxaa leenahay marka haddii empty uu yahay headka waxaa noogu shubtaa adresska kan cusub oo la abuuro. ls hadduusan empty ahayn tailka waxaad ku sadgareysaa nagastigiisa kan cusub oo micnaheedu tahay maadaama haddii keligiis uu ugu soo horeeyo adresska intaa lagu shuban doonaa. haddii laga soo horeeyana waxaan dhahnay kii ugu dambeeyey waxaa kusii daba xirtaa midkan cusub hadda aan sameyn. simple soo maa. kadib waxaan sameynaynaa markasta kan ugu dambeeyo adresskiisa waxaan ku shubanaynaa midka cusbaa. counterkana waxaan dhihi doonaa plus. hadda waxaan kusoo darnay element. haddii aan ka gudubno sizeka markaan ogaanayno waa simple. waxa uu soo celinaya waa counterka waxa ku jira waa integer. waxaan leenahay size kaliya waxaan soo return gareynaynaa counterka hadduu 0 yahay waxba kuma jiraan, hadduu 5 yahay 5 ku jirto. waxaan ku hormaraynaa marka deq haddaa maqashid micnaheedu waa adoo dhahay camal remove simple ama delete shay aan tirtiri doonaa. shayga la tirtiraayana waxaa waa shayga frontiga ku jiro, markasta shaygaas la tirtiri doonaa. waxaa leenahay marka maadaama shay la tirtiro hadhow qofka waxaan rabnaa inaan ogeysiino waxaa tirtirta shaygaas. waxaan leenahay generic ka dhig return type-ka. waxaan u bixinaynaa deq. hadhowda waxaa laga yaabaa meeshu inay empty noqoto. haddii empty noqoto waxaan soo tuuraynaa empty stack exception. waxaan iska jeegareynaynaa meeshu wax ma ku jiraan. haddaysan ku jirin waxaan soo throw gareynaynaa new empty stack exception. hadduu empty yahay shaqo lagama qabanayo. hadduusan empty ahayn waxaan sameynaynaa marka hadduusan empty ahayn waxaan leenahay removed elementiga meelaan ku keensanaynaa. shayga la tuuraayo wuxuu ku jiraa headka marka adresskaas aan tirtir rabno elementiga ku jiro waxaan ku keedsan doonaa meeshaan. hadhow si aan u ogeysiiyo qofka waxa uu tirtiray. kadib headka waa wareejin doonaa. waxaan u wareejin doonaa next elementiga. xusutid waxaan dhahnay qofka safka ugu horeeya ku jiro ama frontiga ama headka hadduu ka baxo nextiga qofka ayaa soo geli doona meesha. sidaas ayaan meesha ugu soo wareejin. saan wax u tirtirayno counterka waxaan ka jaraynaa hal. counterka sida aan uga jarayno haddii shayga ugu dambeeya ama halka shay oo meesha ku jira aan tirtirno waxaan fiirinaynaa shayga ugu dambeeya maan tirtirna. hadduuna yiraahdo tailkana waxaan ku sadgareyn doonaa null. adresska uu ku dhegan yahay ayaan ka fujinaynaa. hadhowda waxaan soo return gareynaynaa removed element si qofka uu ogaado shayga uu tirtiray. intaan ayay qaban doontaa deq. slide-kan way ku jirtaa haddii aad fiirisid. first markaa u imaano first micnaheedu waxay tahay inaan soo akhrino front elementiga. waxaan sameynaynaa marka maadaama wax lasoo akhrinayo generic ka dhig first. waxaa leenahay marka haddii empty uu yahay waxaan soo throw gareyn doonaa empty stack exception. waxaan iska jeegareynaynaa inuu empty yahay. hadduu empty yahay waxaan sameynaynaa inaan soo throw gareyno new empty stack exception. hadduusan empty ahayn waxaan soo return gareynaynaa shayga aan rabno frontiga ku jiro wuxuu ku jiraa head.get element. hadhow waxaan loo soo celin doonaa adresskan headka ama frontiga waxa ku jiro. haddaan rabno marka inaan soo daabacno elementiska queuegeena waxaan leenahay void print queue. haddii queuegeena uu empty yahay waxaan dhihi karnaa the queue is empty maadaama waxba ayna ku dareen waxbana ayna ka jareen. haddii kale waxaan sameynaynaa sidan. haddii kale inaan soo daabacaan rabaa waxaan sameyn doonaa adresska frontiga waxaan noo hayo head. waxaan ku keedsan doonaa meel maadaama aan meel ku keedsanayo meeshaan ku keedsanayo datatypekeeda waxaan ka dhigi doonaa galaaskii node. waxaan u bixinayaa current address. waxaan ku shuban doonaa head. loopkeena wuxuu socon doonaa ilaa currentiga oo kala ekaanayo null. currentiga marka hadduusan null la ekeen shaqadu waa soconay. maxaa la qaban doonaa marka godka la marayo adresskiisa waxaa noo haya current shayga ku jira markaas soo aqrinayna waxaan dhihi doonaa get element.
حالنا هنوصل دابعدا current dot get element good ka markii la soo daawaco next good ina ugu dibna rabnaa waxaan leenahay current-ga waxa ku update gareysaa get next good ka ku sii xigo si loo soo daawaco hadhoodii wixii oo dhan waan loo soo daabaci doonaa logic marka qaabka uu shaqeynaayo hadii ay fiirisid qaabkan noqon doonaa meeshaan print queue brackets-ka ayaan ka tagnay print marka dhahdid marka hadhoodii wuxuu kugu soo daabaci doonaa si simple ah hadda haddii aan tijaabino oo aan imaano main-ka oo aan object ka abuurano maxaa dhici doona waxaan isku dayno class-keeni waxaan object ka abuuran doonaa linked queue data type-ka uu qaadan doonana waxaan ka dhigaynaa string waxaan leenahay address new linked queue hadda haddii aad fiirisid size-ka waa empty size-ka haddii aad fiirisid waxaan leenahay address dot size haddii hadda intaan aan soo rangareeyo weli wax maana ku darin counterka waa 0 addresska wuxuu soo aqrin doonaa size-kaagu waa eber maadaama weli ayna waxba ku darin haddaan rabo marka in aan wax ku daro waxaan samayn doonaa sidan waxaan leeyahay address dot in queue waxaan ku dari doonaa hodan waxaan ku dari doonaa hawl wadaag waxaan ku dari doonaa waa bari saddex address ku daray hadda markaan size-ka fiirino waxaan rabnaa 3 elements inuu noo sheego inay meesha ku jirto 3 elements meesha ku jirto haddaan rabo inaan ogaado shayga ugu horeeyay ama frontiga shayga ku jiro waxaan leenahay sidan waxaan leenahay front elementiga waxaan kusoo aqrinaynaa address dot first waxaan la soo daabici doonaa shayga frontiga ku jiro fiirino front elementigeena ama shayga ugu horeeyay kusoo darnay waa degmada hodan haddii wax la remove gareynayo ayadaa la tirtiri doonaa hadda haddii meeshaan aan dhaho tusaale ahaan maadaama removed elementiga la soo celinayo aan fiirino waxaan leeyahay address dot dq dq maxay qabanaya waxay tirtiri doontaa hodan hodan haddii la tirtiro frontiga waxaa soo geli doona holwadaag oo ah first elementiga noqon doona aan fiirino meeshaan hodan waxay ku jirtay frontigeena waa la tirtiray holwadaaga markaan frontina noqonayso haddaan rabo inaan soo daabaco ayaga dhan waxaan dhihi karaa print address dot print queue fiirino queuegeena waa lasoo daabici doonaa waxyar haddaan dheereeyo queuegeena waxaa ku jirta saddexdan frontigeena waa kan size-ka 3 uu ahay haddii hodan la tirtiro frontigeena waxaa soo geli doona holwadaag haddii holwadaag la tirtiro waa beriya noqonay frontiga kanoo kale marka waxaa loo yaqaanaa linked queue hadda haddii aan fiirin maago inuu empty yahay in kale waxaan isticmaalaynaa is empty maxay noo sheegay inuu faaruq yahay iyo in kale hadduu faaruq yahay waxay ku dhihi doontaa meeshan waa empty hadduusan empty ahaynna waxay ku dhihi doontaa haddii is empty waxay soo celisaa haddaa fiirisid false elements meeshaan ku jiro code-ka waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose github-ka aad ka heli doontid hadduu ilaahay idmo waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday maadaama wax badan lagu soo kafargareyn karin inta ugu muhiimsaneyd linked queue iyo qaabka uu shaqeynaya implementationkiisa ayaan soo qaatay waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu